sida xaaladda ay ka warameen waana sidii aan anaguna uga warameynay maalmo dhaweyd xaalad adag bay ku jiraan waana xilli jiilaal runtii intii wasiir waxaa jirta in gobol ahaan iyo guddida aanan ka qoob qaadin oo la shaqeynay wixii hay'adaha u helo iyo wixii la soo gaarsiin karo la soo gaarsiiyay laakiin tabartu mar kastaba ay ka badantay oo ay dadkana ka badan yihiin waxa loo helayo oo ay yihiin dad runtii maanta duruuf adag ay bilow u tahay saddexdii bilood ee jiilaalka sida la sheegay tahay runtii ma aha xaalad siyaasadeed waa xaalad bilaadan weey xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii mar walba waa heegan bay ugu jirtaa waxaana cadeynayay ku filan maanta wasiir maaliye iyo guddidii heer qaran abaaruhu ay meesha marayaan oo ku shaqeynaya siyaasadda xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii taa marka ay aan eegnana wasiir dadka meesha jira sida lagu sheegay ilaa iyo 4 kun ku qiyaasanay laakiin marka guddiyadii isla eegeen ilaa iyo gobolka Awdal marka la qiyaaso ilaa 8 kun marka 2 kun haday ka tageen 6 kun baa gobolka gudihiisii ilaahay baynu baryeynaa ilaahu adiga gacantaada weyntii gacantaada ilaahu weeyaan qofka bini aadamay waxidii keenana horta ilaahay baa u soo dhigay ilaahay wixii noo keenun baynu halka ku sugaynaa waxaanu xaaladdu waxa weeyaan imika meel Soomaaliland fayoobi ma jirto abaartu meel way gaadhay weydinka ka sheekaynaya dadkii aad ugu timaadeen sidii idin soo dhaweeyeen ee wixii ay haysteen ay aad la wadaagteen runtii abaartan waxa loo bixiyay walaalayaal waxay walaalaysay ummadii reer Soomaaliland isku damqadeen isku naxariisteen waa la iskaashaday waa la iscaawiyay waxaynu saasaynu ku shaqaynaynaa ilaahayna saas hortay noogu qaadanaya waxa weeyaan marmar waxaan sida TV-yada ha isticmaalin oo lacagta TV-ga bixinaysa ma yarbi aan u goynaysa haddana markaad aragto qof la abaarihii cidi ma aqbalin isoo sadee markhaatiyadu baahan runtii markhaatina waa loo baahanay runtii waxa weeyaan qofka xitaa intuu iska fadhiyo magaalo leeyin waxba dadkii loo qabo inta uu TV-ga ku bixinayo hadduu qof busta u siin lahaa ama 2 busta ama 5 busta ama uu soo eegiba lahaa waxba inoo tabahay runtii laakiinse dadka mujtamaca intii badneyd ee wax garanaysay ee in uu ilaahay ku xidhay waa mid ay ka